maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay jid laami oo isku xidhaya kaantaroolada galbeedka iyo bariga ee magaalada Berbera halkaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu dayac fara badan soo gaadhay waxaana dhagax dhigaasi ka qayb ahaa barasaabka gobolka Saaxil xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo xogayaha fulinta ee dowladda hoose kuwaasi oo ka hadlay muhiimadda uu jidkani u leeyahay shacabka mari doona waxaanu dhagax dhigaynaa wado asfala oo ah nooca ugu dambeeya ee wadooyinka qarankan laga sameeyo ahna ugu yaraan 11 kiiloomitir wadadaasi waxay u dhaxaysaa halkan ay taaganayo ran aboodka ah ama in kitaabka loo yaqaano aanteynada hore magaalada Berbera ilaa iyo istabta galbeedka dhinaca kalena halkan ilaa iyo istabta bariga wixii ka jajaban ka xun la hagaajiyo oo si toos ah loo hagaajinayo bayiga koow uga dhignaa maadaama hawlaha ugu culus inay yihiin sanadka bishiisa koobaad ugu dambeyn bishiisa labaad inuu dhamaado 11 kiiloomitir insha Allah waxay dhamaanayaan bisha labaad insha Allah taala dhamaanayaan 11 kiiloomitir asfal banaanka waxaan uga jeednaa mar kasta daamurka aanu ku shubayno wadooyinka inuu ololiyo jinka iyo shaydaanka ku jira inuu ka saaro kuwa necab horumarka daamurku qof marka jinka laga saarayo kolba geedageedu ka qarmuyo baa lagu shidaa marka dadka horumarka necab ee Soomaaliland ka soo horjeeda horumarkeeda ku xanuunsada ayaanu ku afrogeynaa daamurka kullu waxaan leenahay ka baxjino caafimaadkaagu ha arko inuu madax loo qabanayo geesta kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera dadka martidii ay ka nixi jireen wadada dhibaatada ku taala aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa gudoomiyaha golaha deegaanka iyo xildhibaanada iyo dhammaan xogayaha dawladda hoose iyo mas'uuliyiinta dawladda hoose aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa dadweynaha reer Berbera mid baa ka codsanaya dadweynaha reer Berbera maanta farashka u furmay maanta waxaad arkaysaan DB wall oo timiday mashaariic kale inoogu xigi doonta waxa soo airportkii baa isna ku xigi doona waa ilaahay xamdigii dadweynaha reer Berbera marka aad iyo aad waxaan uga codsanayaa inay soo dhaweeyaan mashaariicda maanta Berbera ka bilaabantay insha Allah waxay noqonaysaa Dubai oo kale ay noqonaysaa dadweynaha reer Berbera waxa laga rabaa wadooyinka dhirayntii inay raaciyaan anigu wadayaasha gaadiidka kuwa yareeri kuwa waaweynba waxaan leeyahay walaalayaal haddii aad ka cabanayseen wadooyinka labada laami ka soo gala magaalada ee ka yimaada Burco iyo Hargeysa maanta waa taa la dhagax dhigay dhawaana way dhamaanayaan haddii alla ka dhigo waxa lagu sameeyaa waa lacagtiini cashuurtiini ururtay oo wax la idinkaga soo celiyay baa lagu sameeyaa sida la soo sheegay hadal ma hadhine qofku inuu ilaashado waxa lagu sameeyo waa waxa qof walba shaabka laga sameeyo nin walba shaabkiisu ma laga sameeyay 500 cashuurta laga sameeyo wax laga soo celiyay mashruucii koobaad oo ah wadada ay ka tahay wadadan maanta aynu dhagax dhigayno iyo labada wada ee magaalada gudaheeda oo ah 11 kiiloomitir iyo waliba wax la jira Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka Sam News TV magaalada Berbera.